kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada mid kamid ah barnaamijyadeena taxanaha aynu kaga hadli jirnay arrimaha caafimaadka. barnaamijkeenan maanta waxaanu kaga hadli doonaa waxa loo yaqaan anemiyada ama dhiig la'aanta ama si kala hadaan idhaahdo waa dhiig yaraanta. sidaynu wada ogsoonahayba dhakhaatiirta waxaanu ka aragnaa heblaayo dhiig yaraan baa haysa, dhiig la'aan baa laga helay, dhiig baa lagu shubayaa. anemiyadu waxa weeyaan waa problem iyo dhibaato ku dhacda unugyada casay dhiiga ama hemoglobinta kuwaas oo ka qayb qaata inay qaadaan oxygen-ta ka qaadaan lungs-ka ayna geeyaan qaybaha kala duwan ee jirka. xanuunka loo yaqaan anemiyadu wuxuu noqon karaa mid aad u daran, mid dhexdhexaada, sidoo kale wuxuu noqon karaa short term, mid waqti yar hayo qofka iyo mid waqti dheer hayo qofka. haddaba maxaa lagu garanayaa qofka ay anemiyadu hayso ama dhiig la'aantu hayso? qofka ay dhiig la'aantu hayso inta badan waa qof daalan, waa qof daciif oo jirkiisu daciif buu ka dareemayaa. sidoo kale qofka waxa ku adkaanaysa neefta ayaa ku adkaanaysa, jirkiisu waxa uu isu bedelayaa yellowish, huruud buu isu bedelayaa ama bayl buu noqonayaa, wax bilaamidaba oo cadaanku casuus iyo cadaan iyo wax isku dhex jira buu noqonayaa. sidoo kale garaaca qofka wadnihiisu wuxuu noqonayaa irregular, garaaca wadnihiisu mid degan ma noqonayo, mar xoog buu garaacayaa, mar garaaciisu wuu hooseynayaa. marka garaaca wadnuhu marka la eego wuu kala duwanaanayaa. sidoo kale qofku mar walba wuu dawaqayaa, dawaqaad baanu ka dhammaanayn, laab xanuun ayaa muxuu ahaayey uu qofku ka cabanayaa. sidoo kale gacmaha iyo luguhuna baraf bay noqonayaan oo qabow bay noqonayaan. inta badan qofku wuu dawaqayaa oo madax xanuun saayida ayaa uu ka cabanaya. maxaa sababa haddaba anemiyada? anemiyada dhowr waxbaa sababa. waxaa sababa in uu jidhku hemoglobintii red blood cells ku jir dul saarnayd ama red blood cells laftoodaba inuu jidhku samaysan kari waayo, uu awood yeelan waayo inuu samaysto. sidoo kale waxaa sababi karaa inay qofka ku dhacdo wax loo yaqaano excessive bleeding, inuu si xad dhaaf ah uma si muxuu ahaayey daran uu dhiig baxo oo unugyada casa iyo hemoglobintiba ay muxuu ahaayey ay qofka saayid ay uga baxaan. sidoo kale waxaa keeni kara anemiyada in qofka jirkiisu uu burburiyo red blood cells uu isagu lahaa. inta marka laga yimaado qofka waxaa ku imaan karta noocyo kale oo anemiya ah, mid walba waxaa keeni kara sabab gaar ah. haddaynu ugu horreysiino iron deficiency anemia, waa anemiyada ama dhiig la'aanta ay keento qofka marka uu jirkiisa ama dhiiggiisa laga waayo ironta ama macdanta loo yaqaan iron. tan oo kale waxaa khatar ugu jirta dumarka uurka leh haddii ay qaadan waayaan daawooyinka ama cuntada ama muxuu ahaayey supplementska ay ku jiraan ironta ay ku jirto, haddii ay qaadan waayaan waxa looga baqayaa inuu ku dhaco waxa loo yaqaano iron deficiency anemia. sidoo kale gabadhu marka ay caadada leedahay iyadana waxaa looga baqayaa in ay ku dhacaan iron deficiency anemia haddii ay qaadan weydo cuntooyinka ay ku badan tahay ironta ay ku badan tahay. qodobka labaad waxyaabaha muxuu ahaayey dhiig la'aanta keena waxaa ka mid ah vitamin deficiency anemia, oo ah in qofka qaybo ka mid ah fitaminadu ay jirkiisa ka dhamaadaan oo laga waayo. tusaale ahaan vitamin B2 alif oo kale in qofka uu jirkiisa ku dhamaado waxaa la odhanayaa vitamin deficiency anemia ayaa haysa. taana qofku wuxuu iskaga daweynayaa isagoo qaata cuntooyinka ay ku badan tahay vitamin B2 alifku. qodobka saddexaad waxaa jira isaguna anemiyada ama dhiig la'aanta loo yaqaano anemia of inflammation, oo ah anemia ka dhalatay xanuun qofka jirkiisa ku dhacay sida HIV AIDS oo kale, kansarka oo kale, xanuunka loo yaqaano arthritis oo kale, kala goysyada qofku ay xanuunayaan oo kale ee loo yaqaano rheumatoid arthritis oo kale. waxaa ka mid ah qofka keliya xanuunada ku dhaca keliyaha hadday ay haleelaan isagana waxaa ku dhici kartaa dhiig yaraanta ay sababaan infectionisku ama inflammationisku.
qodobka afraad waxaa ka mid ah nooca anemiyada qofka ku dhacda aplastic anemia ka loo yaqaano kaasi isagu waa rare oo ma badna sababtuna waxa weeyaan waxay timaadaa marka uu jirku awood u yeelan waayo inuu samaysto unugyada casayd ee jirka inuu samaysto ayuu jirku awood ayuu u yeelan waayaa waxaana sababa aplastic anemia waxaa kamid ah infections qaar xanuunada infections ayaa kamid ah sidoo kale waxa sababi kara waxyaabo chemical inuu qofku uu qaato oo sun ama uu cabo ama wax kale oo muxuu ahaayay toxiga ay cuntada u raacaan sidoo kale waxa kamid ah oo keeni kara aplastic anemia in daawooyin uu qaatay qofku oo keena inay jirkiisa u diidaan inuu samaysto waxa loo yaqaano red blood cells sidoo kale waxa jirta anemia ka dhalata dhibaato ku timaada bone marrow-ga ama lafaha dhuuxoodii dhuuxa lafuhuna waa halka laga sameeyo unugyada cascas ee dhiigga ama guud ahaanba dhiigga laga soo saaro haddii uu xanuun ku dhaco lafaha una saameyn ku yeesho dhuuxa lafaha iyaduna waxay noqonaysaa in qofkaasi uu ku dhaco anemia ka timid meeshii muxuu ahaayay laga sameynayay red blood cellska waxaana ka qayb qaata wax loo yaqaano kansarka nooca loo yaqaano leukemia oo ku dhaca dhuuxa lafaha ku dhaca kaasoo sababa in dhiig muxuu ahaayay fara badan oo macmala la soo saaro qodobka ugu dambeeya waxa loo yaqaanaa sickle cell anemia waa nooca dhiig yaraanta ee ka dhasha marka uu qofku uu unugyadiisii jirku shaybkii ay lahaayeen uu isbedelo aynay u saamixi wadayn hemoglobintii oxygen lagu qaadayay ay fuuli kari weyday shaybkeedii yeelan kari waayaan sickle cell anemia-duna waa anemia sababtay in red blood cellsku markaba ay dhintaan waa xanuun la kala dhaxlo uuna qofku uu ku dhasho oo uu dhaxaltooyo oo la isu soo gudbiyo weeyaan